رمضان كريم أصحاب جنة الكحباري كسر دواذا موضوع إن مانتا ستالين نينكي بيرتا أها أساسي ميدوغي سوفيتي وينا iyo burburiyihii Hitler iyo Jarmalkaba iyo ninkii ugu saameynta badnaa qarnigii 20aad wuxuu dhashay Stalin 18 December 1879 wuxuuna ku dhashay magaalada Gori ee ku taala wadanka Georgia kadib waxbarashadiisii dugsiga hoose hooyadiis oo ahayd beeraley ayaa u soo dirtay iskuul ku yaal Ruushka si uu u barto diinta Masiixiyadda una noqdo wadaad diimeed laakiin kuma uu nagaanin iskuulkii oo waa laga soo ceeriyay kadib markii uu dhowr jeer ku dhacay imtixaamaadkii iskuulka markaas kadib wuxuu u leexday dhanka iyo wax akhrinta wuxuu noqday nin ku fiican wax akhrinta sanadii 1899 ayuu Stalin akhriyay buuggii uu qoray Carlos Marx kaasoo ka hadlayay nidaamka hanti wadaaga waana uu ku qancay aragtidii Carlos Marx wuxuuna sanadii 1900 ku biiray xisbiga shaqaalaha ee Bolshevik ee uu hogaaminayay Lenin kaasoo aaminsanaa fikradda hanti wadaaga kadib muddo 5 sano oo ku jiray xisbiga shaqaalaha sanadii 1905 ayuu wuxuu markii ugu horeysay la kulmay Lenin shirkad dhacay qoyqaas oo isugu yimaadeen xubnihii ka tirsanaa xisbiga shaqaalaha ee Bolshevik maadaama Lenin uu wadanka dibad joog ka ahaa Stalinna uu xubin firfircoon ayaa sanadii 1906 wuxuu Lenin u magacaabay Stalin gudoomiyihii maaliyadda ee xisbiga wuxuuna Stalin sameeyay koox burcad ah waxayna bangiyada wadanka dhici jireen lacago si ay ugu maalgeliyaan xisbiga wuxuu Stalin door weyn ka ciyaaray kacdooyin ka dhacay wadanka Ruushka October 1917 kadib markii uu ka dagaalamay magaalooyin badan si ay xukunka ula wareegaan xisbiga shaqaalaha ee Bolshevik kadib guushii kacdoonka Stalin waxa lagu daray xubnihii joogtada ah ee xisbiga shaqaalaha oo ay kamid ahaayeen taliyihii ciidamada casa ee Ruushka General Trotsky iyo Lenin 4 sano kadib kacdoonkii Ruushka oo ku beegnayd 1922 xisbiga shaqaalaha Bolshevik ee la wareegay xukunkii wadanka ayaa wixii ku dhawaaqeen aasaasitaanka midowgii Soviyeeti oo ka koobnaa 4 jamhuuriyadood oo kala ahaa Russia, Ukraine, Belarus iyo Georgia waxaana Stalin loo magacaabay xogayaha guud ee xisbiga jagadaasi oo ahayd mid awood badan waxaana isla sanadkaas 1922 uu cudurka faaliga ku dhacay hogaamiyihii xisbiga ee Lenin wuxuuna noqday mid sariir saaran oo aan wax shaqo qaban karin waxaana hooshii xisbiga sii wada Stalin iyo xubnihii joogtada ah ee xisbiga ugu dambeyn 1924 ayuu dhintay Lenin ka hor intuusan dhiman ayuu warqad uu qoray uu ku dardaaran in xukunka wadanka aan loo gacan gelin Stalin oo uu sheegay inuusan wax asxaan u sameyn doonin xubnaha xisbiga laakiin dardaarankaas ayaa ahaa mid soo daahay oo aan waxba laga qaban karin maadaama Stalin uu yeeshay awood badan kadib dhimashadii Lenin xisbiga shaqaalaha ee Bolshevik ayaa isku qabsaday qaabka uu noqonayo nidaamka siyaasadeed ee hanti wadaaga waxaana loo kala jabay laba kooxood oo kala ahaa kooxdii midigta ee uu hogaaminayay Stalin oo aaminsanad in hanti wadaaga uu noqdo mid hal wadan ah oo laga xukumo hal meel halka kooxda bidix ee uu hogaaminayay Trotsky ay aaminsanad in hanti wadaaga uu noqdo mid federaal ah kadib waxa la sameeyay codeen waxaana loo codeeyay in hanti wadaaga uu noqdo mid hal wadan ah kadib guushii uu gaaray Stalin sanadii 1926 ayuu wuxuu taxaaluf la sameeyay xubnihii awoodda badnaa ee xisbiga oo ay kamid ahaayeen Sinofev iyo Kamenev wuxuuna sanadii 1927 xisbiga ka saaray Trotsky oo ahaa cadawgiisii koowaad isagoo kaashanay saaxiibadiisii Kamenev iyo Sinofev ka saaritaankii Trotsky ee xisbiga waxay awood dheeraad ah siisay Stalin ilaa uu sanadii 1928 ka noqday ninka kaliya ee ugu awoodda badan xisbiga wuxuuna xisbiga wada tashiga ah noqday mid hal qof gacanta ugu jiro oo ahaa Stalin wuxuuna bishii October 1928 uu ku dhawaaqay qorshe uu ugu magac daray Five-Year Plan kaas oo ujeedkiisu ah in midowga Soviet oo xilligaas ah dawlad faqri ah oo beeraley ah oo dib u dhacday uu ka dhigo wadan warshadley ah muddo 5 sano gudahood waxa kale oo Stalin aaminsan in haddii uusan sidaas sameyn in dalalkii reer galbeedka ay soo weerari doonaan iyagoo ka faa'iideysanay dib u dhac wadankooda waxaana isagoo arrinkaas ka hadlayay uu yiri waxaynu 50 ilaa 100 sano ka dambeeyna wadamada horumaray sida daraadeed waxa nagu waajibay inaan farqiyaad ku soo koobno 10 sano waxa kale oo ku dhawaaqay in beeraleyda wadanka la mideynayo oo waxay soo saaraan ay dawladda ka iibiyaan kadibna ay dawladda shacabka siiso qaybna ay dibadda u dhoofiso laakiin arrinkaas waxa ka hor yimid beeraleydii tujaarta ahayd ee wadanka kuwaas oo ay u cuntami weeday in dalgoodii ay faa'iido badan ka heli jireen ay ku wareejiyaan dawladda oo ay ka siiyaan qiimo hoose taas beddelkeed waxay bilaabeen halkii ay dawladda ka siin lahaayeen in ay xoolahooda siiyaan ama aysan waxba beerin oo iska dhaafaan arrinkaas waxa ka carooday Stalin oo u arkay in beeraleydii tujaarta ahayd ay dhibaato ku yihiin kolka ayuu bilaabay inuu sameeyo xabsiyo waaweyn oo uu ku ciqaabo beeraleydii tujaarta ahayd waxaana xabsiyaas ugu caansanaa xabsigii ku yaala gobolka barafka badan ee aan lagu noolaan karin ee Siberia kaas oo lagu magacaabi jiray Gulago Kombos sanadii 1933 oo ay ku ekeed Five-Year Plan wuxuu Stalin ku guuleystay qorshihiisii wuxuuna midowgii Soviyeeti ka dhigay wadan warshado leh halka uu sidoo kale mideeyay beeraleydii wadanka kadib markii beeraleydii tujaarteed uu ka dhigay qaar uu laayo iyo qaar uu xabsiyadiisa ciqaabta badan ku guro sidoo kale muddadii 5 sanadeed waxa la balaamay dhaqaalihii wadanka
oo kordhay boqolkiiba 104. intaas kadib wuxuu Stalin ku dhawaaqay qorshihiisii labaad ee Second Five-Year Plan kaasoo hadafkiisu ah tayeenta iyo casriyeynta ciidankiisa isagoo ka cabsi qabay inay soo weeraraan isbahaysiga Jarmalka iyo Japan oo labada dhinacba ka xigay. wuxuuna 8 goor laabay miisaaniyadii difaaca intii u dhaxaysay 1933 ilaa 1937 ugu dambeyntii 12 Juun 1941 waxa dhacay wixii uu ka cabsi qabay Stalin kadib markii ay soo weerareen ciidamadii Jarmalka ee uu hogaaminayay Adolf Hitler. waxayna ciidankii Jarmalka awood u yeesheen in bilowgii dagaalkaba ay qabsadaan badi dhulweynihii Soofiyeedka ilaa ay 100 kiiloomitir u jirsadaan qabsashadii caasimadda Moscow. wixii intaas ka dambeeyay ciidankii casa ee Soofiyeedka ayaa sameeyay dagaal rogaal celis ah waxayna marba meel ka qabsadeen ciidankii Jarmalka ilaa ay qabsadeen caasimadii Jarmalka ee Berlin. qabsashadii Berlin waxay Stalin u ahayd guul weyn maadaama bariga Yurub oo dhan uu gacanta ku dhigay. kadib dhamaadkii dagaalkii labaad ee adduunka ciidankii casa ee Soofiyeedka ayaa noqday kuwii ugu xoogana caalamka halka Stalin uu ku noqday halyeegii dagaalkii labaad ee adduunka kadib markii uu dunida ka badbaadiyay Hitler. intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa mowduuceena maanta waana inoo mar kale